السلام عليكم كلنتي wanaagsan saaxiibeen meel kasta joogtaan magacaygu waa Cabdulla Kanaan muuqaalkan waxaan doonayaa inaan idin kula wadaago maadaama bishii barakeysnayd aan ku jirno tobankii ugu dambeeyay imanka oo aanu gabaabsi aanu sii marayno inuu diyaar garoobayno maalmihii farxadda ee ciida waxaan dareemaynaa inaan ku jirno dhowrkii cashay ugu dambeysay toloma saddexba ma laba insha Allah bidillah karim kulli wayna ogaan doonaa bisha Ramadaan tobanka ugu dambeysay waxaynu aad ugu dadaalnaa sadaqaadka iyo zakaadka dhikriga quraan akhriska iyo runtii wax kasta oo sadaqa iyo ajr aynu ka helino ilaahay nagu dhawaanayno baynu sameynaa waynu ku dadaalnaa waynu ku tartamnaa qofka kaleba soo ilaahay ugu dhawaado oo ajr iyo xasanad uu ka helo ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynayaa bishan Ramadaan sawaabkeeda iyo dambi dhaafkeeda inuu nasiyo kuwa cadaabta laga xoreeyay inuu Allah naga yeelo aamin ya Allah muuqaalkan waxaan doonayaa inaan kula wadaago bishan maadaama ay bil fadli badan tahay maalmahan ugu dambeeyana ay tahay maalmihii ugu dambeeyay ugu khayrka badnaa waan doonayaa inaan ku baraarujiyo arin yar oo runtii inuu faa'iido badan inuu ka helino ajarka iyo xasanaadka inuu raadinayno runtii lafteeda inuu ka helino waxa jirta guryaheena buux dhaafiyay qof kastana khaanadiisii shelfiskiisa ka buuxa dhar fara badan oo san badankiisu uusan xiranin waxa laga yaabaa inuu ku dooq degdegay qaarkood waxa laga yaabaa qofku inuu qayb kamid ah ay ka yaraadeen ama ay ka weynaadeenba dadka qaar baa naaxa dharkii baa ka yaraada qaarkoodna way saacateysiyaan oo dharkii baa macnaha ka weynaada sidaas la mid ah hablaheena Soomaaliyeed oo maadaama dumarku dharkoodu ay yihiin dhar bil kasta ama labadii biloodba ama saddexdii biloodba yaanihi qaab fashion oo kala ah ay yihiin kuwa iska soo daba baxbaxa kadibna ay yiraahdaan noocan waa nooc hore oo laga baxay guriyihii laakiin si ay wali u buux dhaafiyaan oo guriyihii ay u buuxaan boorsooyinka ay buuxaan dharka armaajooyinka noogu jira hadaba ma ogtiin inay dad fara badan oo Soomaaliyeed oo ka baahan ay jiraan dad badan oo dharka aan haysan waxay ku labistaan baan haysaninba waxay ku ciidaan hadalkeeda iska badaaba hadaba waxaan bil kasta tobankan dambe aan aad ugu dadaalaa oo inta badan inta Ilaahay i haleeshiyo waan jeclahay inaan ka shaqeeyo dharka xaafada yaala ama kuwa aniga aan leeyahay ama kuwa aruuraha iyo kuwa kale qaraabada iga dhow intaan soo ururiyo oo hagaajiyo oo aan meeyro oo xaafada lagu meeyro waliba la kaawiyadeeyo ayaan package gareeyaa waxaan u diraa xiriyaha qaxootiga dhadhaab muddo baan ka shaqeynaynay aniga iyo akhyaar kale oo waqti hore nagu dhalatay arintan balse sidii baan u wada runtii ilaa hadda waqti 8 sano waxaan u wada si joogto ah sanad kastana waxaan u diraa xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab muuqaalkana waxaan u maleynayaa muuqaalka saddexaad inuu yahay inaan baraarujintaas aan ku sameeyay hadaba saaxiibay waxaan doonayaa inaan la wadaago arintan iyo fursadan inaan uga faa'iideeno walaalaheena Soomaaliyeed ee masaakiinta ah ee aan haysanin dharkaas haday ku ciidi lahaayeen iyo haday macnaha asturaad iyo ay u noqon lahayd labisba inaan uga faa'iideeno dadkaas dharkan faraha badan ee guriga noo yaalo waa fursad weyn runtii waana arin aanu ajarka iyo xasanaadka bishan aan u dadaalayno qayb kamid ah ay noo noqon kareyso labada casho ama saddexda casho inta bisha ka dhiman waxaan doonaynaa akhyaarta saaxiibada aan la wadaago inay arintan uga faa'iideeyaan dadka masaakiinta ee u baahan dharkan faraha badan ee guriga noo yaala waa fursad runtii waan waxaad sameyn kareyso hadduu muuqaalkan ku soo gaaro fadlan waxaan ka codsanayaa inaad inta yar ee guriga ku taala ee aad ka maarantay intaad hagaajiso magaalada aad joogto dabcan qurbaha dadka jooga way jiraan dad badan oo iyaguna laftooda dharkaasi ka maarmay laakiinse dadka qaataaba ma jiraan dadka aan la hadlayaa ee sida gaarka aan u taabanayo waxa weeye dadkii dalkeeni iyo deegaanadan ku xeeran yaanihi inay arintani aad ugu dhug yeeshaan inaad dharkaas hagaajisaan inta quruxda badan leh aad taqdaan oo meydaan oo kaaweedeysaan kadibna ehelada qaraabada dadka masaakiinta ah ee deegaanka aad ku nooshahay hareerahooda jooga ama akhyaarta saaxiibadaada qaarkood baaba u baahanbe inaad ku sadaqaysatid inaad siisid labis fiican u noqdo uu ku ciido uu noqdo uu labis u noqdo oo runtii uu ka faa'iideysto marka waa fursad runtii caziim ah fursadaasaan idin kala maarmi waay saaxiibayaal waan jeclaysay inaan idin soo gudbiyo haddii aad jirto arintaas inaad ka shaqeyn karto waliba akhyaar badan aad isugu xiri karto waa dareemi kartaan dadkeena baahideedu meel kasta taala dhinac kasta laga baahan yahay marka intaasi
wax weyn bay qof u noqon karaysaa. Hal shaadh iyo surwaal aad qof dhalinyaro aad siisay ama cabaayad yar iyo dirac oo aad gabadh walaasha oo aad siisay u hadiyeysay, wax weyn bay u tahay, ciid bay u tahay, farxad bayna u tahay. adiguna sadaqo iyo sawaab iyo ajir baad ka helaysaa, iyaguna way ku labisanayaan. ugu dambeyntii khayrka iyo waxyaalaha yaryar ee runtii aynu ilaahay ugu dhawaanayna ajirkeenu ka helayno, in isku baraarujino ummadana aan uga faa'iideyno. Assalaamu calaykum waraxmatullaah.